Norwegian spruce wuxuu noqday geedka kaliya ee taagan ee cagaaran ee aan caleemihiisii daadin. nabad saaxiibayaal meel walba aad joogtaan waxaan ahay Maariyo Xuseen oo alaabad uga barateen arrimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta fadlan hadday tahay markii kugu horeysay muuqaalka like sar si walaalo badan u gaadho waxaad igala socon kartaan qaybaha YouTube, Instagram iyo Facebook mar kale muuqaalka like sar si saaxiibo badan u gaadho ku soo dhow muuqaal kale xiiso leh waxaan ka mid ahay shirkad caalami ah oo la yiraahdo Oblast Global waa shirkad ka caawinaysa kuu sahlaysa kuna fududeynaysa inaad ka ganacsato in ka badan 200 oo wadan adiga gurigaaga iyo goobtaada shaqo jooga technology waxyaabo badan ay u fududeeyay sida inaad wax baran karto ganacsan karto dhaqaale dhaxalgalan ka sameyn karto in ka badan 200 oo wadan Oblast Global waxay soo bandhigtaa waxyaabo aad u muhiim ah oo ay ka mid tahay healthy beauty iyo fashion si gaar ah muuqaalkan wuxuu sharaxayaa qayb aad u muhiim ah oo aan ugu magac darnay Safe Home Revolution waxaa laga wadaa badbaadinta daryeelka korkaaga iyo badbaadinta daryeelka caafimaadkaaga iyo badbaadinta gurigaaga inay tahay waxyaabo aad u muhiim ah badankii waa maqasheen waana aragteen goojo ama sharoobo la yiraahdo Fountain of Life caafimaadkaaga xal u tahay Fountain of Life waxaa laga sameeyay geed la yiraahdo Norwegian spruce oo ka baxa dalka Norway geedka waxaa la ogaaday waxyaabo badan inuu kaga duwan yahay geedadka kale sababtoo ah waxaa lagu magac daray wax la dhaho free disease wuxuu haystaa wax la dhaho lignaskaas oo ah antioxidants in wasakhda jirkaaga ku jirta inuu dibadda u soo saarayo sidoo kale inuu difaacaaga dhisayo wuxuu haystaa waxyaabo aad u muhiim ah oo ay ka mid tahay antioxidants in wasakhdaada jirka ku jirta inuu dibadda u soo saarayo sidoo kale anti-inflammatory inuu caabuqa ama bararka jirka ku jira inuu banaanka u soo saarayo sidoo kalena antibacterial inuu ka hortagayo bakteeriyooyinka jirkeena ku jirta sida caadiga jirkeena waxa ku jirta bakteeriyooyin laba ah mid fiican iyo mid xun ta xunna inuu saarayo ta fiicanna inuu ku deynayo kana hortagayo dhammaan bakteeriyooyinka jirkeena ku jirta saddexdaa waxyaabood hadduu jirkaagu helo waxa yaraanaysa fursadii uu caabuq ama xanuun uu jirkaaga ku geli sidoo kale saan hore idinku soo sheegay Fountain of Life waxa laga sameeyay geed la yiraahdo Norwegian spruce geedka waxa la ogaaday wax isbedel inaanu ku dhicin xilliyada ay cimiladu isbedbedelayso sababtoo ah Norway waxa ka daa baraf aad u tiro badan barafkaas wuxuu saameyn ku yeeshaa geedaha kale lidkiisa Norwegian spruce wuxuu noqday geedka kaliya ee taagan ee cagaaran ee aan caleemihiisii daadin oo wax gabooba aanu ku dhicin sidoo kale waxaa la ogaaday sirta kaliya uu geedkan u leeyahay inuu si uu isdaaweeyo Fountain of Life korkana waa laga marsan karaa afkana waa laga qaadan karaa Fountain of Life waxaa la soo saaray 2018 bishii labaad feedback badan ay noo soo celiyeen dadkii aan ka iibinay ee macaamiishayada ahaa wax badan ayay u tareen sida inay xanuuno fara badan ay ka caawiso oo ay ka mid tahay macaanta dadka waxaa ka mid ahaa ayaday oo in badan qabtay xanuunka macaanka runtiina xanuunkaas ay muddo badan la xanuunsanayd waxayna qaadan jirtay kiniiniyadaas hadda ma qaadato 7 days markay isticmaalayso waxay ii sheegtay in ay macaanteedii ku noqotay normal hadeerna dareemaysa nafis sidoo kale waxay ka caawisay dhiikar ay muddo badan ay lahayd waxay ii sheegtay sidoo kalena in dhiikarkaas Ilaahay kaga caafiyay hadeerna ay dareemaysa nafis iyo caafimaad fara badan waxa kale oo ka mid ahaa aniga oo dadkii isticmaalay Fountain of Life muddo hadeer waxaan isticmaalay sidoo kale waxay ka caawisay samboor oo aan inta badan kiniin u qaadan jiray hadda wax kiniin aan qaato ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin wax badan ayay ii tartay sidoo kale waxay iga caawisay in ironkayga ay kor u soo qaado alxamdulillah 7 days markaan isticmaalay wax tar fara badan ayaan ka dareemay waxa kale oo ay leedahay Fountain of Life faa'iidooyin fara badan ama xanuuno fara badan ayay xal u tahay waxa ka mid ah inay difaacaaga dhisayso sidoo kale waxa ka mid ah inay ka hortagayso xanuunada sida dhiigkarka macaanta lafa xanuunka beer subaga sidoo kalena ay saxayso hormooniska xilliyada ay dumarku ay ku jiraan caadada oo kale inay saxayso sidoo kale inay bakteeriyada ka hortagayso sidoo kalena inay gaaska xal u tahay sidoo kalena inay kansarka xidmaha ku dhaca ay ka hortagayso sidoo kale waxyaabaha muhiimka ay leedahay inay timaha ku soo saarayso rag iyo dumarba san sheegay Fountain of Life korkana waa laga qaadan karaa afkana waa ka qaadan kartaa sidoo kale waxa ka mid ah waxyaabaha ka caawin doonto ilowshaha inay u fiican tahay ayay noo sheegeen dad badan oo isticmaalay dhanka dad badan oo iyaguna hurdada ay ku yaraatay markay isticmaaleen waxay noo sheegeen in markay isticmaalayeen Fountain of Life
in ay hurdadoodii u siyaadisay runtiina ay hurdo la'aan badan muddo ay dareemayeen inay Fountain of Life xal u noqotay. Xanuunada iyo xanuuno kale fara badan ayay Fountain of Life ka caawinaysaa. Haddaba su'aasha ugu weyn aad isweydiinaysa ayaa ah haddaan xanuunadaas aad soo sheegtay aan qabin maxay ii taraysaa? Waxay kugu taraysaa in ay difaacaaga dhisayso. Fountain of Life waa hagaha hiiliyaha qof walba oo raba inuu caafimaadkiisa kor u qaado si dabiici ah ayay uga shaqeyn doontaa. Meel walba aad joogtid waa soo codsan kartaa. Qofkii fiidiyogan kula soo wadaaga fadlan la xiriir ila soco qaybta labaad ee Safe Home Revolution.